qarniga bajacaylkii ugu qiimo weynaa horta sheekadiise ku midooba qoysko ubad khayr la kala hela ku midooba qoysko ubad khayr la kala hela amiin 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 qarnigaba arooskii ugu qayo weynaa farxadooda qeexow waa qurux jacaylkuye qalbiyada karaarida qarnigaba jacaylkii ugu qiimo weynaa horta sheekadiise ku midooba qoysko ubad khayr la kala hela ku midooba qoysko ubad khayr la kala hela amiin 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 dhegeystayaal weli halkaa nagala socotaan ee aad si toosa nagu dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda CKCU daalama naga dhegaysataan mawjada dhererkeedu yahay 93.1 Ottawa waaxigeedaba caalamka oo dhanna www.ckcufm.com wagaag heestaasi hordhaceed waxay wahayd arrimaha qoyska iyo waxay ka hadlaysaa runtii reer dhisan waxaa garabkayga bidix fadhiya saaxiibkay Cabdiraxmaan Kaahin oo runtii isagu aad ugu takhasusay shakhsiyaadka iyo runtii arrimaha bulshada oo dhan haddaba Cabdiraxmaan hore halkan dhowr jeer ayuu ka hadlay oo arintaasi bulshada Soomaaliyeed ee magaaladan Ottawa degan uu runtii la wadaagayo dhibaatada qoysaska Soomaaliyeed haysa oo burburka ku keenta xagee ay salaadu ku xirmilaadaan maxaa dhaca runtii ma jacayl baan isu guursan ma kalsoonida meesha ka baxda ma dadku xiisa isku guursadaan maxaa runtii inta la isku guursado hadana burburku ku yimaada maxaa reeraha burburiya Cabdiraxmaan runtii shakhsi in badan buu runtii arrimaha ka hadlay xafiisna uu ku leeyahay magaalada Ottawa oo arrimaha dadkaasi dhibto hayso oo runtii isagu uu xal u raadiya ama badawo haddaba studio-ga ayuu martiin ugu yahay waxaan jecelahay bal inaanu marka hore aan Cabdiraxmaan Kaahin aan ku soo dhaweeyay idaacadda CKCU iyo ummadda Soomaaliyeed dhageysanaysa Cabdiraxmaan ku soo dhawow idaacadda CKCU mar kale ku soo dhawaad walaal Maxamed aad iyo aad bal Cabdiraxmaan kuga madcelinaya sida wanaagsan ee noogu timid Cabdiraxmaan kolley hore halkan waxaynu uga hadalnay arrimo fara badan oo ay ka mid tahay runtii shakhsiyaadka sida oo kalena jacaylka haddaba bal haddii aynu galabta falanqayno aynu qaada dhigno guurka kadib runtii waxa aad moodaa sanad dhaqankii hore ee ay ummadda Soomaaliyeed lahayd in uu sal guuray oo aan dhaqankaasi ama haatan aanu qurbaha meel walba aanu ka shaqayn oo ay noqoto qurbaha hase ahaatee oo dhaqanka hore runtii inanta ceeb ayay ku ahaan jirtay malaha furitaanku waxay ka uga doorbidi jirtay inay dulli kasta iyo runtii xanuun kasta ay guriga u joogto isagoo ninka ku hayo in la yiraahdo heblaayo waa la furay intaas iyada dhib ku ahayd amba ceeb maantana wax lagu faana ayay noqotay marka Cabdiraxmaan maxaad isleedahay xagee ay salaad ku xirmilaada maxaa keenay runtii in ay gabadhu iyo ninkii labadan lamaanaha isguursaday guur kadib in aanay sii wada joogin ma wajigii dhabtahaba soo baxay oo markii hore si aan runtii aqeeda ka fog amba aan runtii khiyaaliye isku mehersadaan ama isku guursadeen maxaa mushkiladu waxay ka timid Cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم وما صنت هاي محمد فرصة سيسي إن أرنتن قوس كان كهذا هرنا وادي سيسي لكن مدان كلام مغنين وأنا ما تكسر نقضي ما توم مال عيدة مركو رئيسة كورة لها مسلمين تندقي سنية عيد ونكسين عيد مبارك عيد مبارك مركلة بعد ولا السؤال شاد ويدي سوى السؤال آدي ونكسين ويان هرنا وانوجت شو أبي محوها su'aalooyinkan oo kale laakiin dad waxa laga yaabaa hore uu la socday laakiin migaan la socon baa jira anigoo markaas siinaya benefitka dadka and maanta bay ugu horeysanay maqlaan sax horta arinta dhibaatada qoyska Soomaaliya kaliya kuma koobna waa laga wada siman yahay sax wadankan waqtigii la yimid 9-madii bilowgiisii ilaa 2003 statistiga furitaanku wuxuu ahaa 30% sax marka laga hadlo Canada degan Soomaaliya cid walba ku jirto sax maanta wuxuu marayaa 75% sax 10kii reeroode isguursada 7 ugu yaraan iyo barbaa
muxuu ahaa furitaan ku jira markaasi wax taas Soomaalidu kaliya gaar uma ahin marka dadku haddaba markay isguursanayaan waxa isku keena waxa la yiraahdo shucuur markay isfurayaanna waxa isku furaan shucuur labadaba shucuurta kuma maqna sax ana shaqadeedu waxa weeyaan aan ku takhasusay shucuurta sax qofka talaabadu qaadayo shucuurta ka dambeysay waa maxay dadkana waxaan ku dhiirigelinaa inay bartaan shucuurtooda sax magacyo badan bay leedahay ila ma ku magac baa shucuurta loo kala saaraa sax noocay tahay in la ogaado iyo waxa ka dambeeya fikradaha ka dambeeya sax marka qofkaasi wuxuu helayaa qalabkii uu shucuurtiisa uu ku handle gareyn lahaa qoftu sidii shucuurtiisa uga badbaadi lahaa horena waanu video dhowr jaran kala duubay ilaahay markuu abuurayay bini'aadanka laba wax buu ku ibtilayay mid waanu naqaanayo waxa weeyaan shaydaanka oo taa waa la yaqaanaa musheekh haddaad u tagtidna ya way garanayaan laakiin mid waxaa jirta bini'aadanka badankooga ay jahlin ka yihiin ay isku haystaan inay garanayaan laakiin ayna garanayn waa shucuurta weeyaan macaal wadaadada intay shucuurta ka garanayaan way yarta intayna ka garanaynba ka badan shucuurtuna waxa weeyaan waanigii hore u lahaa tallaabadaada qaadid waxaa ka dambaysa shucuur tallaabo ma qaadi kartid shucuur la'aanteed dheg taamiga haddaad xoqanaysid waxaa ka dambaysa shucuur marka inaad baratid shucuurta kugu wacan tallaabadaad qaadaysid inaad fahantid baa muhiima amba ha noqoto mid aad ku gursanaysid amba mid ay noqoto aad ku kala tegaysaa reerkiina waa taa weeyaan haddaba labada qof markay isku yimaadaan labadooduba waxay wataan waxa la yidhaahdo baggage ingiriisiga waxay wataan dhaxal bay wataan ay ka dhaxleen qoyskay ka yimaadeen meeshay ka yimaadeen hadduu wanaagsan yahayna waa wanaag hadduu dhaxalkaasi uu dhibaato far badan uu leeyahayna dhibaatada qofka wata nin iyo naag midna ma kala dheera waxaad tidhi dhulkii marka la joogo dumarku way ka naxayeen furitaanka imigana waxaad moodaa inay ku faanayaan anigu walaal maxamedow sidaa umaan dhigeyn hadday maanta dumarka soomaalida weliba markay noqoto ay noqoto inay ku faanaan furitaanka anigu waxaan aaminsanahay inay tahay caafimaad qab hadduu qofkuuna ka naxayn furitaanka way wanaagsan tahay waayo tu kalaa jirta dad waxaa jira aan furitaankaba aqbalin oo haddaad maanta ay adiga kugu samaynayaan 20 sanadood oo guumaysiya hadday kugu samaynayaan adiga ay ku guumaysanayeen ay ku caayayeen oo si bil'aadnimada ka baxsan ay kula dhaqmayeen oo 25 sanadood dul qaadatay ood ahayd qofkii ugu wanaagsanaad ahayd ay kaa dhegaysan waayeen waanwaan iyo wax walba maalintaad go'aankaad gaadhid aad tiraahda kadib ma wala noolan karna nabadgeliyo qofkaas waxaa laga yaabaa inuu ku dhahdo waaban isdilayaaba aqudhaan iska jaraya marka hadday noqoto qof ka naxa oo weliba naxdintu ay noqoto amba necbeeshaha furitaanku noqoto xaddaaf marka qaarkood dilbu qofku ayuu ku sugan yahay ama nafta isqodha iskaga jiro ku sugan yahay marka halkay taa ay noqon lahayd ay khatarteeda qudhadeedu aan wanaagsanayn waxaa la qaatay inay noqoto tu kale oo shakhsiyadda aan khatar gelinin nafteeda qofkii faraxsanaado uu aqbalo furitaanka waa furitaanku waxa weeyaan ta ugu dambaysa uu ilaahay u baneeyey una laakiin una jecleen furitaanku marka qaarkood xal buu noqdaa dhibaato ayuu xal uga noqdaa midda kale qof ka baqaya furitaanka waayo xishoodkay leedahay iyo dhibaatada ay leedahay qof ka baqaya waxay ku qasbaysaa inuu adkaysto guumaysi guriga ka dhex taagan hadday noqoto ninka guumaysi inta badan waxa dumarku mal waa la guumaystaa ayaa waa la dhibaateeyay rag waxaa jira la abuse gareeyo ya oo dulqaataa jira marka qofku hadduu ka baqo inuu furo nin iyo naagba waxay ku qasbaysaa markaa inuu dulqaato dhibaatadii marka furitaanku dhibaato maahin waa xal laakiin su'aal kale la isweydiin karaa oo la odhan karaa maxaa ugu wacan furitaankan faraha badan leh ee degdega oo soo noqnoqonaya kaasina Soomaalidu kaliya kuma koobna dadka kale waan la qaybtanaa taa waa laga hadli karaa waxa ugu wacan
horena waan ka hadlay dhowr waxaa la soo qaataa 3 waxyaabood baa jira furitaanka inta badan sabab u ah ta ugu horeysa ya waxaa la yidhaahdaa waxaa la isku laayaa amba la isku qabsadaa dhaqaale lacag ku filan guriga madkeentid iyo adu lacag baa la isku qabsadaa dhaqaale sax ta labaad waxaa la isku qabsadaa qoyska inantu ay ka dhalatay amba inanku ka dhashay waxaa la yidhaahdo extensive familyga soo dhexgala la isku qabsadaa sax dumaashi sodog seedi sax waa problemka labaad ee kale weeyaan sax ka saddexaad inta badan dadka dhexdooda soo mara ee u noqdo sabab furitaanka waxa weeyaan maxaan ku rahdaa korsiinta ciyaalka iyo sida ciyaalka loo edbinayo sida ciyaalka loo dhaqmayo waa saddexdaa wax had iyo jeer soo noqnoqda sax okay saddexdaasi eeg si fiican ha loo dhegeysto saddexdaasi ma ahin sababta furitaanka sax sababta furitaanku waa mid kaliya weeyaan waa shucuurta shucuur baa qofka fura ay ku kala tagaan shucuurna way isu guursadaan ku heshiiyaan marka haddii laga hadlo case ingiriisiga kelmadda sababtaan leeyahay waxaa laga yaabaa inay af Soomaali tii ku habboonaadeen ahayn laakiin haddaan dib ingiriisiga dadka garanay dib ugu soo noqono waxaan ka hadlayaa case waxaa la dhahaa faransiiskana waxaa la dhahaa cause iyo case waxaan filaya inay isku mid yihiin ingiriisiga faransiis laakiin marka cause amba case-ku waxa weeyaan shucuurta kaliya weeyaan wax kale maaha sax waxa kale waxay noqonayaan sababooyin bay noqonayaan sax saddexdii waxaan soo sheegay iyo kuwa kaleba sax wahag sida aad tilmaamtay iminka cabdiraxmaan waxaad sheegtay in runtii boqolkiiba awal 30 ahaan jirtay iminka boqolkiiba 75 furitaanka sida aad tilmaamtay waxaa la isku furaa marka dhaqaalaha laga yimaado waa shucuurta wahag dhinaca kale ma la oran karaa labadan qof ee isguursanaya lamaanaha iyagoo iminka runtii reer igleelay amba dhisaaya amaba qofku hore ha soo guursado caruur ha haysto lab iyo dhadiba ku doono ha ahaado amaba yaa haysana single ha ahaado ma is oran kartaa qof markan uu gelayo degdeg buu ku galaa oo qofkii isagoo runtii aan dee labadii qof aan si qoto dheer aan isku baran si uu guurkoodan usii nagaado usii jiro ayay degdeg isku guursadaan deetana waxaad imanaysaa xaqiiqdii dhabtahay ama wejigii dhabtahaa ee labadan qof midkoodba uu lahaa taa lafteeda ma la odhan karaa waa sax maxamed waa la odhan karaa walaal qofku dad waxaa jira degdeg isku guursadaa jira hadhowna dhibaato ay ku timaado iyo dad waxaa jira degdeg aan isku guursan sax ee haddana dhibaatada ku timaado sax marka mar waa la odhan karaa laakiin haddii si diiba loo fiirsado kuma xidhna walaal degdega mid kalaa jirta oo caawin karta dadka inay ka badbaadaan dhibaatada yacnihii dee furitaanka hadday dee dhibaato markaas ay tahay waxay kaga badbaadi karaan ayagoo labadu intayna isguursan inay amba markay isguursadaan inay qaataan waxa la yidhaahdo training la siiyo ay ku badbaadaan waa qof aad gaari u dhiibtay sax isagoona licenskii aan haysan aan tababarna aad helin aad gacanta ka saartay licenskii gaariga lagu wadayay sax qofkaasi wuxuu badan yahay maxay dee inuu accident galo sax amba cid uu dilo sax amba cid isagu amba naftiisa wax yeelo laakiin qofkii la soo tababaray ee loo soo tababaray gaariga sidii loo wadi lahaa sax hadday dhibaata ku dhacdana looga badbaadi lahaa sax hadduu accident galo la yidhaahdo ha baxsan sax idan dad baa markay accident galaan sax orod mooda miciin sax weliba hadduu cid dulad amba cid ya waarun haddii la yidhaahdo hadda dhibaata ku dhacdana wataas aad ugu badbaadisa sharci ahaan sidii wanaagsaneed wadi lahaydna wataas sax qofkaas waxay u badan tahay inuu ma og tahay de gaarigii meel fiican u mariyo una accidentkuna ku yaraado sax tusaale kalaan ku siinayaa waddankanaan joogno winter baa jiro baabuurtu way silbadaan waarun ha taana waan soo qaadan karnaa qof aan weli baraf gaari ku dul wadin sax oo loo dhiba gaari barafku kaxeeya oo markuu arko wax khatar ku soo socda uu beriga ku qabto gaarigu silateynaya oo ka baxaya wada waa taasoo kale weeyaan haddaba labada qof markay isguursanayaan waa laba qof oo jaahilnimo isku guursanaya markay noqoto barashada shucuurta kama hadlay kuwa kale waa barashada shucuurtu waa maxay shucuurtu waa af gooniya weeyaan miyaadna marmar qof af kale ku hadlayo ajnabiya aadna fahmayn markaad dhegaysatid maxaad moodaa inuu qofkan wacwacun iska leeyahay shiino dad af shiino ku hadlaya amba af jarmal ku hadlaya
markaad dhegaysanaysa waxba aadna ka fahmayn waxaad isweydiinaysaa maskaxaad waxani maysyal yelayaan mise way isfahmayaan waayo adiga ma fahmaysid shucuurtuna waa sidaas dadka shucuurta garanaya ee ku takhasusay markay maqlaan dad kale oona shucuurta shaqo ku lahayn oo laakiin isku haysta inay garanayaan waxaan u haysanaa anagu inaan maxaan ku dhahdaa dadkani waxay ka hadlayaan inay garanayn ayna af la fahmayana ku hadlayn tusaalaan kaaga soo qaadi shalay toole gabadh baan la joogay qaybta Quebec joogta oo inan kale ugu yeedho inaan caawiyo gabadhaasi waxay gala hadashay waxay tiri waxaan ahay 7 jir baan ku dhawaayay imiga hadduu maan ogaaday shucuurta dhibaatada inagu hayso marka miyaad maxaan ku dhahdaa miyaxaana loo bari waayey markaanu yareen waxaan ku idhi anugu 10 sano ugu dambaysaba ay shaqadooda tahay shucuurta had iyo jeer waxaan idhaahdaa iskoolka ilmuhu markuu dhasho in lagaga bilaabo xitaa uurka hooyadii markuu ku jira in lagaga bilaabo weeyaan waayo inantu marka uur ay qaado shucuurteedu cirkay gelaysaa odaygeegu wuxuu u baahan yahay inuu fahmo gabadha uurka markay gasho inayna si qeyral caadiya aanoo shaqaynayn marka hadduu dhooro uu ka dhooro dhibaatada ilmaha caloosha ku jiraayey waxay u badan tahay inuu noqdo ilmo badbaaday oo caafimaad qaba haddii gabadhu inta uur ay leedahay dhibaato lagu sameeyo ilmahaasi way taabanaysaa waxaana yidhahdaan stresska gaalada waxaa dhaci karta inuu dhasho ilmo xanuunsanaya marka waxaa la isweydiiyay waa maxay ciyaaradaha imiga inta badan ee ku soo dhasha xanuunooyinka weliba soomaalida waxay yidhaahdaan autism waxaa la idhaha autismiga ilmaha ku soo dhashay ilmaa imiga wax cad oo laga garanayaay ma jirto dadka qaarkood waxay dhahaan waa talaalada yidhahdaan dadka kale waxay ku sheegaan wax kale ya marka muxuu ahaa waxa weeyaan in loo fiirsado yaa muhiima labada qof markay isguursanayaan waxaa isku keenay shucuur inay tahay waxa beritoona la isku diri doona ee kala kaxayn doona waa shucuur marka inay shucuurta ay bartaan ay qaataan training magaaladan joogno waa la bixiyaa anigu waan bixiyaa kalaasyo ay bartaan marka waxay helayaan gaadhigoogii nolosha iyo loo wadi lahaa waas wanaagsan iminka cabdiraxmaan oo markaad eegto taa aad tilmaantay oo kale haddaba dad fara badan ayaa qarka u saaran iminka inay reeraha gudumaan dad fara badanna waxa ay door bideen amba ay naawulayeen inay reer dhistaan oo reer yeeshaan haddaba adigoo uga faa'iideynaya kuwa aan weli soo gelin badweyntaasi maxaad odhan lahayd iyo kuwa runtii ku jira ee ka sii dhacaya labadaba maxaad runtii u diri lahayd ad odhan lahayd kuwana ka badbaadin lahayd kuwana aad odhan lahayd bal intaynaan samayn kuwii hore tusaale qaato waxyaabaha qabta walaal anigu talada ugu wanaagsan aan siin lahaa waa ta mar walbaan idhaha haddaad nasiib u yeelateen maanta inaad dhegaysataan raadiyooga oo waxaan aan ka hadla inaad maqashaan talada ugu wanaagsan waxa weeyaan la kulma dad qof sbesyaalistiga weliba ku takhasusay shucuurta shucuurtu maaha inuu keliya marka dhibaato ay jirto xitaa waa badbaadada dhibaatada soo socota marka waxaan kula talin lahaa barashada shucuurta ya ordo doonta naftiinaad ku badbaadinaysa marka ugu horeysa marka labaad haddaad reerkiinaad ku badbaadinaysaan ubadkiinaad ku badbaadinaysaan ummadda inila nool ayaad ku badbaadinaysaan marka talada aan aaminsanahay inay tahay ta ugu wanaagsan waa taa weeyi waana sunnaha nebiga waa aniga hore u lahaa bilowga markuu ilaahay abuurayay bini'aadanka 2 ibtilood buu ku ibtilooday laba mid waxa weeyaan shucuurta mid waxa weeyaan shaydaanka oo dariiqa ka saaray midna waa shucuurta shaydaanka waanu naqaanaa oo marka guriga soo gashid waa adigan la acuudu billahi min ash-shaytaan rajiim shucuurta ayadee baa la iskaga kaxeeyaa aayad quraan ma jirtaa shucuurta la iskaga kaxeeyaa ma jirto laakiin ilaahay wuxuu soo dejiyey aayado tarbiyada nafsiga caawinaya صح. kelmadan la isticmaalo ee la leeyahay therapy qudhadeeda
waa tarbiyatul nafs kelmadda therapy waxay ka timid af carabi oo ah tarbiyadda nafta ayay ka timid naftoo la tarbiyadeeyo okay waa si wanaagsan markaa labadaba waxaad leedahay kuwan kasii dhacayana runtii inta ugu dhow ee consularka u taga kuwan kale aan weli reer bilaabin waxaad leedahay ninkuna intaynaan bilaabin bal consular u taga haddaba ummadda soomaaliyeed weliba north america markaad europe ka nimaadno ama marka mandaqadiba ka nimaadno runtii marka daraasaad laga sameeyo guurka iyo runtii muddooyinka ugu dambeeyey waxaad moodaa in runtii guurku aada u sii yaraanayo cabdiraxmaan maxaa isleedahay markaa maxaa sababay anugu waxaan isleeyahay waxyaabooyinka guurka sababay waxa weeyaan dhowr arrimood weeyaan mid waxa weeye mid xaq dhaqaale waxaa laga yaabaa wadannadana ku xidhanta la joogo dadka imika dhulkeenii jooga dhulkii soomaalida jooga amba afrikaanka jooga inta badan waxaa laga cabanayaa dhallinyartii inayna dhaqaale fiican maanteena haysan hadduu inankun dhaqaale fiican haysan gabadhuu guursadaa way ku adkaan waa dhulka qaarkood dhibaatada ka taagan weyaan talabaad waxa weeyaan dumarkay noqotay weliba kanada markaan joogno dumarka soomaalida weliba dumarka hablaha xakan ku dhashay amba ku koray ragga soomaalida ma aabisana anu waxaan garanayaa hablo soomaaliya oo idhaahda aabbahayoo kale ma raba inaan gursado sida hooyaday u gala u abiisgareey ana midii abiisgaree ma rabo markaa ajaanib ay dhaabo marka waa cabsi ay ka qabaan guurka amba cabsi ay ka qabaan ragga soomaalida guurkooga ragga soomaaliduna waa cabsi ay ka qabaan dumarka soomaalida waayo ragga soomaalidu markay dhexdooda kulmayaan amba ay kaftamayaan amba ay sheekaysanayaan image bay bixiyaan inta ugu badan dumarka soomaalidu inay dhibaato badan ay leeyihiin ee ajanabigu ay dhaamaan taasina waa fikir qalada weeyaan taa lafteeda ma la odhan karaa waa markan ilmuhu uu soo arko waalidkiisa u dhaqmayaan hooyadii aabbihii oo mar walba carruurtii isku dulcaayaya isku duldilaya oo waxa weeyaan aan ixtiraamka meesha ka baqan in hadhow ilmihii markuu saa ku weynaado kalifta markaa inuu inanta ay nacdaba amba inankiiba qof soomaaliyeedba uu ka doorbida ajaanibka yacnihii wixii hooyadii aabbaha isku hayeen sida aad tilmaantay inaanan gelin oo aan guurka soomaali ama sheekaysigan soomaali la sheekaysan iga doorbido inaan dad kaleo aan soomaali ahayn la sheekaystaa taa lafteedu waalid ka timid ma la odhan karaa waa la odhan karaa haa waayo ilmuhu waxay u badan tahay boqolkiiba 70 iyo in ka badanba inuu ku celiyo wuxuu soo arkay waa run oo ubadka guriga waxa lagu soo koriyo ayay beritooda markay weynaadaana ku dhaqmaan way jiraan dad ka badbaadiya laakiin inta badan way saamaysaa waalidka siday u dhaqmayeen amba si loogu soo koriyey ubadkooda hagaag cabdiraxmaan mid kalean jeclaan kaa weydiiyo isla dhaqanka ku salaysan iyo runtii guurkanba hoos imanaysa ma is oran kartaa runtii korintan kobcintan ilmaha la korinaya waalidku soo korinay lafteeda inay meesha ka baxday oo waxa weeyaan waalidkii maalintii ay amba islaanta odayga isku dhaceen amaba odaygu reer ka baxay islaantu inay niyad jab qaatay inay iyaduna ka fadhiisatay inaa runtii ay maskaxdeedii ay qaadi kari weyday amaba runtii korintii ibadka ay korinaysay ay stress waxaan la dhaha gaaladu ay runtii ku dhacday waxaa laga yaabaa in sidii maalin dhoweyd runtii barnaamij laga soo diyaariyey oo runtii dhinaca arrimaha qoyska aan soo bandhignay dhawaan aan keeni doono oo qolo caddaani soo diyaarisay hooyo inan haysato oo kale oo inantaasi ay ku noolayd muddo basementiga hooyadana dusha ayna war isku hayn taa lafteeda ma la odhan karaa ka warhayntii carruurta iyo runtii ogaanshihii labadii guriga ku wada noola ayaan iska warhayn oo waxaa laga yaabaa inay iskumar soo hoydaan in runtii carruurtii aan waalidku aanu ka warhayn taa lafteeda ma la odhan karaa ha waa la odhan karaa nolosha cusub ee maanta lagu nool yahay ee qof waliba goonidii uu cararayo waxaa dhici karta in maxaan ku rahdaa culeys aan la saarin qoyskii way dhici karta waa run way dhici karta stresskuna wuu jiraa rag iyo dumarba intaba uu ku badan yahay waayo waxaa timid maxaan ku rahdaa nolol cusub oo hadda maxaan ku rahdaa bedishay xiriirkii bini'aadanka ay wada lahaayeen dhexdooda waa si wanaagsan haddaba cabdiraxmaanow markaad eegto mid kalea jirta inaan iyadana kaa weydiiyo taa garanay ragga soomaaliyeed laftooda oo innagaba aynu ka mid nahaan aan iska reebayn aan la odhan iyagoo iska reebaya inaan runtii ma la odhan karaa
wax xilgabisba ayaa ku soo baxday fara badan oo iyaga runtoodii xilkoodii in ay ayna ka soo baxa ahayn ayaa meesha hadday noqoto North America, Europe, mandaqadii meel walba in runtii had iyo jeer aad arkayso cabashada oo hadday noqoto in runtii balwada iyo wax kale ama runtii xilkii reerka ay gabeen taama la odhan karaa ragga laftiisaaba gabay xilkii waa run maxamed waa la odhan karaa walaal waa la odhan karaa taasina waxay noqon kartaa mid ma ogtahay si fududna loo arki karo oo la arki karana weeyaan laakiin mid kale ku dari lah haye niyo horena waan ka idhi halkan dumarka Soomaalida kuwa xitaa halkan ku dhashay sax tarbiyad baa la siiyey si loo noqon lahaa oori sax kii wadankii la joogana saabe laakiin tarbiyadda ninka Soomaaliga la siiyey waa maxay anigu haddaan ka mid ahay dadkaas ma garanayo ma jirto nalma siin tarbiyad meena Soomarba ha marka ninka Soomaalida wuxuu baahan yahay aabo siya tarbiyad sax si loo noqon lahaa aabo iyo nin muxuu ahaa mas'uula hadduu aabihii jooginna waa inay tolkoogu ay wax u qabtaan sax haddii tolkooguna joogin ciddii ragga ugu dhowi waa inay runta u sheegtaa laakiin maanta inaga Soomaali ahaan rag ahaan waxay naga maqan inaan runta isku sheegno nin Soomaaliyeedow usoo saxsayni hawshaadii waad gabtay sax maanta xitaa marka wadanadii Soomaalida laga yimaado walaa Somaliland walaa meel walba dhibaatooyinka na soo maray 30 sanadood ugu dambeeyay iyo ku imigaan ku jirno waxaanu ka degilaanahay haddii labada mid dembiga la saarayo aanu ninkan saari lahaa sax waxa ugu qori badan waa ninka waxa ugu dil badan waa ninka ya waxa cuntada loo badiyaa waa ninka sax haddana xilkii gabayna waa ninka waa subxaanallah anigu waxaan leeyahay mas'uuliyaddan qaadan anigu isaga bilaaban waa si wanaagsan taa waxaa saartay in runtii aynu ragow aynu meesha kacno aynu horaa loo yidhi hees baa oran jirtay runtii raaliya nin helaa ragnimo ku faana oo gabadh raaliya ninka helaa ragnimo ku faana sidoo kale dumarka laftoodu kaalin mug leh ka qaataan dhisidda ragga oo hacoonin ahaa haliyey bay ka dhigaan haliyeynin ahaana waa kolba sidii aad ugu magaranaysaa gabadha lafteedana ku dhisi karto taasna meesha ku jirta farxadooda qeexow waa qurux jacaylkuye qalbiyada ka raarida qarnigaba arooskii ugu qayo weyna farxadooda qeexow waa qurux jacaylkuye qalbiyada ka raarida qarnigaba jacaylkii ugu qiimo weyna horta sheekadiise ku midooba qoysko ubad khayr la kala hela ku midooba qoysko ubad khayr la kala hela aamin